kulankan waxa uu bilow u yahay 16 maalmood oo loogu talagalay in laga hadlo sida lagu dhameyn karo tacadiyada haweenka iyo carruurta loo geysto. Waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan UN-ka, ururo u dooda xuquuqda haweenka iyo warbaahinta. Beta Kilin, isku duwaha arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa ka hadlaya tacadiga UN-ku og yahay ee haweenka lagula kaco Soomaaliya marka la joogo. Somalia is facing numerous complex challenges, all of which have an adverse effect on women and girls. Persisting conflict and human disaster worsen already very bad indicators for women's empowerment and gender equality. Out of the 4.2 million persons in Somalia needing humanitarian assistance, 2.1 are women and girls. Humanitarian experts estimate that 2.6 million people are internally displaced. Aamina Xaaji Cilmi oo ah gudoomiyaha xarunta SSWC oo ka shaqeysa horumarinta haweenka iyo carruurta ayaa sheegtay in dadka dhibaateeya haweenka aan la horkeenin sharciga, taasina ay sii kordhinayso dhibaatooyinka haweenka loo geysto. dhibka adduunku waa wada qabaa markay noqoto siyaasadda ka qaybgalkeeda, baahida markay noqoto wax gaarana waa la qabaayo. wadamada dagaaladu ay aafeeyeen oo calaaduhu baabi'iyeen sida Soomaaliya oo kale, haweenku waxay qabaan dhib gaara, gabdhaha yaryarka waxay qabaan dhib gaara. maxaa yeelay waxbarashadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay shaqadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay noloshii isma saarna. marka si wixii markaas dhibaatada taagan inta loo kaashado, annagana waxaan la ka rabaa dadka gudaha joogay baanu nahay inaan diyaarino baahiyada taagan sidii aan uga qayb gali lahayn, adduunka ula qaybsan lahayn, adduunkuna uu naga kaalmeeyo. marka waxaan rabnaa haddii alla yiraahdo waxa adduunka ka jiro dhinacaygan ka haysanaa wixii noo gaara oo haween ahaan noogu gaara, maxay dagaalkana aafeeyay darteed, burburka, abaaraha muddo 27 sano ah. marna dawlad la'aan baa jirta, marna dawladdu waa kacaysay, waa kobcaysay. alxamdulillah hadda dawladdu wadadii bay saaran tahay, aan rabnay inay guusha ku gaarto. marka waxay ila tahay u hadalida iyo taageerida iyo ka warqabida caalamkuna ay naga warqabaan, annaguna aniga iyo dadka ila miduhu aan nafteedii siinay sidii gabdhaha haweenka Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed mar labaad adduunka ugu soo laaban lahaa sida dadku u noolyihiin aan u noolaan lahayn. waa mas'uuliyad aan qaadanay. Fatwa Xasan oo iyana kamid ah haweenka kulanka ka qayb galay ayaa ka dalbatay xildhibaanada golaha shacabka inay ansixiyaan sharciga jinsiga. midda sharciga ama xadgudubka kufsiga ama tacadiyada GBV-ga ama jinsiga wuxuu marayaa way soo ansixiyeen kabinetka ama baarlamaanka iyo wasiiradii way soo ansixiyeen. wasaaradda haweenka, wasiiradeena deeqa aad ugu dadaashay, waa la soo waday ilaa iyo ra'iisul wasaaraha. hadda wuxuu marayaa xildhibaanadeenu taagan yahay. marka waxaan codsanaynaa aan dhahnay ama aan u direynaa fariin ama baaq in xataa lama aqrin wili, in la aqriyo first reading ajirto, second reading iyo third reading, saddexdii aqrin inuu maro kadib si loo ansixiyo si dhibanihii u helaan cadaalad, dambiilihiina uu u maro ciqaabtiisa. haweenka iyo ururada u dooda xuquuqdoodu waxay aaminsan yihiin in haddii la ansixiyo sharciga haweenka ay yaraan doonaan dhibaatooyinka loo geysto haweenka iyo carruurta. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.